أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. yaal waa taxanihii sheekooyinka qur-aanka maantana waa sheekadii nebi muuse qaybteedii koowaad. boqorkii fircoon ee masar xukumi jiray ayaa kibray oo inta isbiday arlada dusheeda ku qooqay. dadkii uu u talin jiray qaarkood oo ah reer israa'iil ayuu dulleeyey oo si gaar ah u dhibaatayn jiray. noloshii ayuu u dacadeeyey, hoog iyo ba'na wuu ku jirrabay. xaaladdaas adag siday ugu jireen ayaa waxaa maalintii dambe fircoon u yimi nin faaralow ah oo ku yidhi, wiil reer israa'iil ka dhalan doona ayay boqortooyadaadu eersan doontaa oo gacantiisa ku burburin doona. maalintaas buu argagax iyo murugo la seexan waayey, lana hoyan waayey. wuu dhirfay oo ismadax maray. kolkaas buu wiil kasta oo qoladaa ka dhasha gowrac ugu jiiday, gabdhahoodiise iska daayey. ha yeeshee awoodda eebbe way ka weyn tahay gaal bacaw ahi qorshe uu samaystay wax loogu hor joogsan karo. waa hore ayuu qadaray dadkaas sida xun loo dullaystay inay dhexli doonaan boqortooyada ninkaas qooqaaga ah ee naxariista daran. waa hore ayuu xukumay taasi inay ku hirgeli doonto gacanta wiil yar oo gurigiisa ku kori doona. ha yeeshee sida ubaxa qodxaha ka soo dhex fufi doona, sida waaberigeena bartamaha mugdiga bud ka soo odhan doona. eebbe ugu dambaystii reer israa'iil ayuu arlada u gacan geliyey, wuxuuna dhexal siiyey dhulka shaam iyo masar. fircoon, haamaan iyo askartoodiina wuxuu indhaha u saaray hooggii ay ka baqi jireen iyo ba' wixii ay ka yaabi jireenba. marwayukaabid waa muuse hooyadiise oo foole hayso ayaa fadhiisatay meel gees ah oo aqalkeeda ka mid ah. umuliso ka dhalisa ayay u wacatay. saacada kadibna way argagaxday markay aragtay muuse oo hoosteeda galgalanaya. waxaase ka adkaaday jacaylkiisii, markaas bay xanaanadiisa ku dadaashay, si wacanna u dhowrtay. muddo 3 bilooda ayay ku guulaysatay inaan fircoon ka wareelin. dabadeedna si carruurta soo korodhay loo ogaado ayaa maalintii dambe basaasiintii boqorka meel walba loo diray. kolkaas baa muuse hooyadii waxa uu eebbe ku soo duway inay wiilkeeda sanduuq u diyaariso, dabadeedna intay ku rido ay webiga niilka ku tuurto. wuxuu kaloo eebbe solansiiyey inay walaashiis xeebta u dirto si ay ula socoto meesha uu ku dambeeyo. intaasba inay yeesho rabbi ayaa ku soo duway. kadib markuu laabteeda xasil ku riday hadal wanaagsan oo uu dhagaha ugu shubayna uu baqdin oo idil kaga saaray. walaashiis oo amarka hooyadeed fulinaysa ayaa kabaheedii cagaha ku ridatay oo walaalkeed muuse ka raadisay meel walba oo loo malayn karo. waxay socotaba mar qura ayay is aragtay iyada oo halkii ay taagnayd naxdin kala dhaqaaqila. waxay aragtay sanduuqii oo wiilku ku jiray oo fircoon loo sii sido. ha yeeshee eebbe naxariistiisu meel fog ma jirto. afadii fircoon baa markay indhaha ku dhufatayba jacaylkiisa eebbe qalbigeeda ku riday. markaas bay ninkeedii ka codsatay in aan la diline ay korsadaan oo uu labadooda wiil u noqdo. muuse hooyadiisna way walbahaartay. kolkaas bay ogaatay in inankeedii la helay, aqalka reer fircoonna uu ku sugan yahay. ha yeeshee wuxuu eebbe ugu waxyooday in aysan nixin, waxna ka baqin, ugu dambaystana uu wiilkeeda u soo celin doono. dumar irmaan ayaa loo keenay si uu middood u nuugo, caanaheedana uu ugu gaajo beelo. hase ahaatee dhammaantoodba wuu wada diiday, naasahoodiina afka ayuu ka duway. haamaan ayaa dabadeed yidhi, gabadhan ayaa garanaysee iyada arrimihiisa wax ka weydiiya. kolkaas bay tidhi, waxaan doonayaa oo keliya inaan boqorka siiyo tale wanaagsan. markiiba waxay fircoon u sheegtay inay wiilka u heli karto qoys uu ku xasili karo, iyaguna u xanaanayn kara. dabadeedna muuse oo ooyaya isaga oo gacnaha ku sita ayuu fircoon gabadhii wuxuu ku amray inay wiilka u raadiso una keento qof dumara oo u korisa. wax yar kadibna waxaa goobtii timid haweenay uu canugii ku aamusay, naasaheediina intuu ku dhegay naasaha dumaradii kale ka doortay. fircoon baa kolkaa inta yaabay ku yidhi, adigu tumaa tahay, maxaase ku wacan naasahaga mooye inuu kuwa haweenka kale oo dhan afkiisa ka duwo. muuse hooyadii ayaa kolkaa tidhi, waxaan ahay haweenay caraf badan oo caana macaan, weligeyna canug la ii keenay ima diidin. maalintaas buu gacanta ka geliyey, masruuf joogto ahna u qoray, waxayna iyada oo ku faraxsan la aaday aqalkeedii.
sidaas buu eebbe ugu abaalguday inankeediina mar kale ugu soo celiyey si ay u ogaato ballanqaadkiisu inuu dhab yahay. marwayukabid markay nuujintii muuse dhammaysay ayay reer fircoon dib u guddoonsiisay si uu waayo dambe col ugu noqdo, naxdin iyo caloolxumana uu u bado. markuu koray ee uu weynaaday ayuu eebbe u waxyooday oo nebi ka yeelay, aqoon iyo garaad dheerna siiyey. dadkii laga xoogga baroonaa ee la gumaysan jiray ayaa dabadeed xagga muuse soo jeedaaliyey oo ka fishay gardarrada lagu hayo inuu uga maciino, dulmigana uga gargaaro. oo maxaa ku jaban? soo duulka la dulaysanayaa ma ay ahayn qoladii uu ka dhashay, isaguna soo ma ahayn ninuu eebbe ugu deeqay naf wanaagsan oo aan marna quursiga qaayibi karin, ilayska rabbina wax ku aragta. maalintaas ayuu muuse naftiisa ugu ballanqaaday dadkaas laga gardaran yahay inuu hiil u noqdo. tashigaasi isaga oo uu ka go'an yahay, xarunta fircoonna u socda, ayuu waddada kula kulmay 2 nin oo diriraysa. midkood baa wuxuu ahaa qoladiisa reer Israa'iil, kan kalena wuxuu ahaa reer fircoonka xoogga leh ee awooddu ay gacmaha ugu jirto. kii ay isku qolada ahaayeen ayaa u habar wacday oo ka codsaday inuu ka celiyo ninka reer Masar ee gardarrada ku dilaaya. muuse ayaa kolkaa damcay inuu ninkii reer fircoon garaaco. wuu u gacan qaaday, wuxuuse ahaa gacanqaad ay tiisii ku gashay, geeridiisiina sabab u noqotay. dabadeed falkiisii ayuu ka qoomamooday, wuxuu u qaatay fal shayddaan inuu ahaa. rabbina wuxuu weydiistay inuu ka dhaafo dembigii uu falay. baryadiisiina waa laga aqbalay, maxaa yeelay rabbi waa dembi dhaaf badane, naxariistiisu
hadalkaa ka keenay. wuxuu rabay inay laabta ugu xasisho eebbe agtiisana uu meeqaan sare ku yeesho. wuxuu rabay rabbi inuu qalbiga ugu shubo erayo wanaagsan oo rajo cusub geliya, cabsida iyo walaaca hayana ka qaada. dabadeed waxaa muuse la faray inuu xagga fircoon u sadcaalo. markaas buu ka welwelay xilka la saaray, arrintuna ay la cuslaatay. waxaa ku adag aayadaha hanuunka iyo xujooyinka xaqa sidii uu dadka ugu faahfaahin lahaa. waxaa ka maqan aftahamadii uu ku gudbin lahaa dareenka iimaanka ee caqligiisa iyo qalbigiisaba buuxiyey. waa arrin culus oo u baahan erayo culculus oo fidinteeda loo adeegsado, erayo waaweyn oo madax adayga aadanaha lagaga adkaado. markaas buu eebbihii beriyey oo ku yidhi, eebbow, laabtayda waasici si ay xambaarka xilkan culus ugu dul yeelato. arrintaydana ii fududee oo iga hor qaad dhibaha iyo wax walba oo ka soo dhalaalidda hawshayda iga hor joogsan kara. eebbow, carabkayga xooji oo aftahamo isii si warkaygu u caddaado, xujooyinkayguna ay u noqdaan qaar adag oo wax lagu qancin karo, quluubtoodana wax gelinsiin kara. eebbow, ii yeel gudbinta farriintaada mid iga kaalmeeya oo ku-xigeen ii noqda, ehelkaygana ka mid ah. waa walaalkay haaruune. eebbow, igu xooji oo xilka aad si uu xaqa ugu garbeeyo, rasuulkiisa u maamuuso, ayuu eebba aqbalay baryada nebigiisa sharafta badan. kolkaas buu haaruun oo maalintaa masar ku sugan wuxuu ku soo duway inuu sadcaalo oo walaalkii muuse ugu tago halka uu joogo, si uu xilka ula qaado, arrintan culayska badan fulinteedana uga kaalmeeyo. durbadiiba dhawaaqii xaqa ayuu haaruun u dhaganuglaaday. waddada ayuu cagta saaray. walaalkiisna wuxuu kula kulmay agagaarka buurta midige. maalintaas bay muuse laabta u xasishay. maalintaas baa xoog cusubi soo galay. maalintaas buu eebbe siiyey wixii uu ka baryaayey ee uu awal hore ka duraantay. qaybtii saddexaad ee sheekadii nebi muuse. xagga eebbe haddii laga shuumay kadib, muuse iyo walaalkiis haaruun ayaa rabbi u waxyooday oo ku yidhi, orda oo fircoon u taga, kulana hadla erayo qabqabow, erayo dabacsan oo naftiisu aanay ka didin. waxaaba suuragala inuu ku jilco oo erayadaa qaboobi ay qalbi adaygiisa wax ka beddelaan, dardarta amar ku taaglayntiisana biyo qabow ku rusheeyaan. waxaaba dhici karta waxyeelladiisa inaad ka badbaadaan, isla markaana uu waayo marmarsinyo kasta oo uu xaqa ku hor joogsan karo. waxaa la idinka doonayaa dacwadiinnu inay ahaato tu qabow oo awooddiisa aan halis gelinayn, qabkiisana aan lagu dhaawacayn. waa dhab oo ma jirto eebbaha samada iyo dhulkaba leh cid kaga habboon oo ina bari karta edebta, oraahda dabacsan, dareenka sare iyo hababka dhaqanka wacan. eebbaha qur-aankiisa ku sheegay inaan cidina ka hadal wanaagsanayn ruuxa uunka rabbigood ugu yeera wax wanaagsanna fala. sow fircoon ma aha ninkii uu muuse aqalkiisa ku soo koray. sow abaalka barbaarinta kuma laha. sow kolka isaguna muuse gar uguma laha inuu hadalka u dabciyo, habka uu wax ugu sheegayaana uu mid qabow ahaado. eebbe wuxuu labadii rasuul ku yidhi, muusow, adiga iyo walaalkaa u taga fircoon iyo qoladiisa, tartiib tartiibna dacwada ugu gudbiya. waxaad u sheegtaan ergadii eebbe inaad tihiin. waxaad ugu yeertaan reer israa'iil inuu ka daayo cadibaadda iyo dhibaatooyinka uu ku hayo. waxaad ku tidhaahdaan, xujo cad baannu xagga rabbigaa kaaga wadnaa, ciddii hanuunka raacda korkeedana nabadgelyo. markaas bay muuse iyo walaalkiis masar u ambabaxeen, waxayna u tageen fircoon. kolkaas buu quursi ku eegay, arrintii ay ula socdeenna la yaabay. wuxuu yidhi, ma adiga muuse ah baa sidaan igula hadlaaya? sow ma tihid markaas isaga oo dhashay oo muluq ah kii aannu korinnay? waayaaba miyaanan ahayn dhowr gu oo da'daada ka mid ah kiina dhex joogay, naguna dhex noolaa? markaas buu muuse yidhi, ma waxaad igu abaal sheeganaysaa anigoo dadab ah inaan aqalkaaga ku koray? ma taas baad iiga dhigaysaa wanaag aad ii gashay? iyada qudheedu sow ma ahayn wax ka dhashay cadibaadda iyo cadaadiska iyo addoonsiga ilaa maantaba
aad reer israa'iil ku hayso. fircoon baa kolkaa taa kaga jawaabay, sidaas baad haddaba u fashay wixii aad fashay, adigoo nagu ballan furay abaalka aan kugu leenahayna inkirsan. si deg deg ah ayuu muusena eedayntaa gaashaanka ugu dhuftay, wuxuuna ku yidhi, falka aad sheegayso waxa aan falay anigoo kuwa lunsan ka mid ah. markii waxyeeladiinna aan ka baqayna waan idinka baxsaday, dabadeedna naxariista eebbe ayaa i haleeshay. aqoon iyo garaad dheer buu i siiyey, wuxuuna iga dhigay rasuulladiisa midkood. fircoon baa kolkaas soo oodmay, wax uu ku jawaabo ayuu garan waayey. irdihii doodda ayaa ka soo xirmay. markaas buu adeegsaday hab kale oo uu u maleeyey inuu gar ku heli doono, badbaadadiisuna ay ku jiri karto. wuxuu la soo booday, oo rabbiga abuurtu waa kuma? muuse ayaa taana kaga jawaabay, waxyaalaha hortaada ka muuqda haddii aad dhabtooda xaqiiqsato, jiritaankoodana aad u fiirsato, aniga eebbahay ayaa iyagana eebba u ah, waa eebbaha cirarka, dhulka iyo inta u dhexaysaba. aad buu fircoon jawaabtaas uga carooday. weliba kuwii hareerihiisa joogay ayuu dareen geliyey oo u horseeday inay sidiisa oo kale jawaabta muuse ula yaabaan, gaashaankana ugu dhuftaan. wuxuu ku yidhi, war niman yahow bal wax maqla. dhagama leedihiin, hadalka uu yidhise ma maqasheen. waxaan weydiiyey xaqiiqada rabbigiisa, markaas buu ii sheegayaa falalkiisa. muuse ayaa markaa yidhi, rabbigay waa rabbigiin iyo rabbiga aabbayaashiinnii hore. haddii aad garaad leedihiin, waa rabbiga jahada galbeed, midda bari iyo labadooda inta u dhexaysa. sidii hore si ka daran ayuu fircoon u dhirfay. ciil iyo caro ayuu la jeesjeestay. xujadiisii baa soo gaabatay, wuxuuna garan waayey weedha nebiga wax uu kaga jawaabo. kolkaas buu adeegsiga awooddiisa maciin biday oo dhaar ku maray inuu xabsiga ku tuuri doono haddii uu muuse yeesho ilaah aan isaga ahayn. dhaartaas iyada ah muuse dan uma u gelin. dhambaalka eebbe gudbintiisa ayuu ku fara adaygay. isagoo rajo wacan ku hubaysan ayuu fircoon hadba dhinac ka soo galay, kolbana si wax u tusay. wuxuu ku yidhi, bal ka warran haddii aan kuula imaado daliil cad, xujooyin aan dabadood hadal bannaanayn iyo mucjisooyin yaabab leh oo shaki oo idili uu kaaga bixi karo. markaas buu fircoon yidhi, kuwaas haddaba soo daah, haddiiba aad run sheegayso. nabadgelya korkiisa ha ahaatee, nebi muuse wuxuu ahaa nin dhabar adag oo weligiisba talada fiican la salansiiyo. eebbaweyne ayuu isku hallayn jiray, mar walbana ka filan jiray tubta toosan inuu ku duwo. xilligaas isaga ah ee uu muuse noolaa, falka ama sixirku wuxuu ahaa wax dadweynaha reer masar aad ugu dhex faafay, si weynna ugu dhex baahay. waxaa ka soo baxay faalalowyo laga yaabay oo dadka aragga iyo caqligaba ka xada, siday dabayshu caleenta dhirta ugu cayaartana maankooda ugu cayaari kara. fankaas ayay aad u barteen, mana jirin cid ka badisay amaba kula tartami karaysay. dhinacaas oo qura ayuu eebbe reer masar ka abbaaray. wuxuu doonay inuu ku ceebeeyo wixii keli ahaa ee ay aqoonta u lahaayeen. markaas buu idmay iyaga oo amankaagsan shirqoolkoodii inuu dib ugu celiyo, loogana adkaado falkii ay uunka kale ugu faani jireen. taasi waxay ahayd xikmad uu eebba doonay. waxay ahayd gacnaha nebigiisa muuse mucjiso uu ku muujiyey, una eg qoladii isaga loo soo diray wixii adadyawa kale kaga badseen. aqoontaas iyada ah haddii lagula tartamo loogana adkaado, maxaaba u haray? falkii looga dambeeyey haddii loogu yimaado laguna daaduumiyo, maxay ku hadli karaan? sow kolka wax iska cad ma aha, wax walba oo kalena in lagaga adag yahay. sow kolka ereyga eebbe sarraynta ma laha, kooduna ma hoosayn doono. haa, eebbana dhexda ayuu ka kala jebiyaa shirqoolka khaa'inada. ushiisii rabbi awoodda xaddaafkaa ku abuuray ayuu muuse dhulka ku tuuray. isla markiibana waxay isu rogtay mas dhab ah. fircoon baa kolkaa ashqaraaray oo yaab oo idin la isugu keena. isla weyni iyo amankaag wada jira ayaa ka meel waayey. kolkaas buu yidhi, wax kale ma haysaa, isaga oo ay la tahay arrintu inay muuse halkaa kaga eg tahay, wax dambana aanay ku harin. markaas buu rasuulkii eebbe gacanta jeebka u diray, kana soo saaray. mise intay caddaatay ayaa waxaa ka soo baxaya shoocaha iftiinkiisu indhaha oo idil aragga kala tegi karo. shoocaha inta faafay oo aad u baahay, 4 garjaho ku wada ekaaday, bari iyo galbeedna daboolay. dhulkiibaa markaa fircoon ku yaraaday. walwal iyo walaac buu la madax wareeray. wuxuu u baqay awooddiisii iyo boqortooyadii uu kursigeeda ku dangiigay. mucjisada uu arkay ayaa xasilkii ka qaaday. wuu isla yaraaday. naftiisii baa la maamuus beeshay. wuxuu iloobay qoladiisa inuu beri u sheegtay rabbigooda sare inuu yahay, eebbe aan isaga ahaynna aysan lahayn. taas isaga oo halmaansan ayuu taageerayaashiisii u bayray oo arrintii u soo bandhigay, taladiina wax ka siiyey.
wuxuu ku dadaalay inuu iyaga isa soo xejiyo muusena u nacsiiyo. xaqdarradii ayuu maradii xaqa huwiyey, wuxuuna adeegsaday sir iyo madadabaan wixii uu adeegsan karaayey. wuxuu yidhi, tolow, kuwani waa laba faalalow oo doonaya inay falkooda dhulkiinna idinkaga saaraane maxay idinla tahay? intay la taliyeen ayay ku yidhaahdeen, iyagana xabsiga ku tuur, magaalooyinka oo idilna raggaaga u kala dir, si ay kuugu keenaan faalalow kasta oo aqoonta falka ku xeeldheeraaday. taladaas ayaa fircoon la wanaagsanaatay. wuxuu ahaa nin weligiis himilo been ah isku halleeya, kuna tiirsada derbi uu asaaskiisu aad u jilicsan yahay. wuxuu ahaa nin daadsito oo u malaynaya halista uu ku sugan yahay xumbada inuu kaga badbaadi karo. meel walba oo ay jireen ayuu faalalowyadii ka soo urursaday. maalinba maalinta ka dambaysana walaac iyo argagax ayaa naftiisa ku soo kordhaayey. inuu awooddiisa waayo, dowladdiisuna ay baaba'do ayuu ka cabsi qabay. muusow, ma waxaad noogu timid inaad falkaaga dhulkayaga nooga saarto? ayuu nebigii ku yidhi, isaga oo amankaag iyo baqdani ay ku kulmeen. maxaa fircoon ku dhacay? maxaa xasilkii kala tegey oo uu la gariirayaa? maxaa naftiisa argagaxa ku riday ee harka iyo hoyaadkaba seejiyey? kii ilaahnimada sheegtay miyaanu ahayn? miyaanu awood iyo milgaba sheegan jirin? inay sidaasii ku dhacdaase waa gar. wuxuu labadiisa indhood ku arkay xoogga xaddhaafka ah ee eebbaha weyne uu ku muujiyey gacnaha nebigiisa muuse oo ah aadane sida dadka kale cuntada u cuna, suuqyadana u dhex saqaafa. dabadeed fircoon baa wuxuu muuse weydiistay inuu la dhigto ballan iyo madal lagu kala haro oo labadooda dhinacaan midna ka maqnaan. muuse ayaa kolkaa yidhi, waa inoo maalinta ciidda, maalinta dadweynaha oo idil iyaga oo isa soo qurxiyey ay madasha ku kulmaan. waa inoo maalintaa si uu xaqu u soo shaac baxo, sida qorraxdana uu ugu iftiimo. fircoon wuu dadaalay. guntiga ayuu dhiisha isaga dhigay. faalalowyadii xilligaa noolaa ayuu isu wada keenay. wuxuu u baqayaa boqortooyadiisa, welina wuxuu rajo ka qabaa inuu muuse ka adkaado, dacwadiisana uu madashaa ku maamuustiro. hase ahaatee waxay ahayd riyo beena iyo habeenkii xalay ahaa oo tegey. habaas kor u duulay, qorraxda ma fadarayn karo. taliya manaxa ahina maamuuska ay cadaaladdu leedahay sina hoos uguma dhigi karo. madashii baa la isugu yimid. muuse ayaa dadkii goobta isa soo tubay jeedaaliyey. kolkaas baa waxa uga dhex muuqday kuwo badan oo falka ku tamcaaran. iyagii intuu hadalka u jeediyey ayuu ku yidhi, hoog iyo ba ayaa idin sugaaya haddii aydun eebba ku been abuurataan oo mucjisooyinka aydun sixir ku sheegtaan, haddii aydnan si badheera fircoon ugu sheegin xaqa iyo elayska iftiinka badan, haddii aydnan u kala qeexin waxa ay ku kala duwan yihiin falkiinna iyo mucjisooyinka aan anigu wataa, haddii aydnan u kala soocin xaqdarradiinna iyo xaqa aan anigu muujin doono. wuxuu tacabkiisu ba'ay, hoogna u sugnaaday kiinii la dagaalanka xaqa ku dadaala, xaqdarradana u garbeeya. dhawaaq xaq ah oo dhegta faalalowyaasha toos ugu dhacay ayuu warkaas muuse ahaa. daboolkii baadinimada ayay ka gelgisheen. laabtoodana wuxuu ka saaray wixii shirqoolla ahaa oo ay isaga la maaganaayeen. dacwadii xaqa ayay si dhab ah ugu nuglaadeen. waddadii hanuunkuna hagaag bay ugu muuqatay. amarkii fircoon ayay faalalowyaashii u hoggaansameen. midkoodna madashii uu ugu yeeray kama u maqnaan. kumayaal bay tirada gaarayeen, mid walbana xadhig iyo ul buu gacnaha ku sitay. iyaga oo diyaarsan oo aad nin qura moodo ayay ku soo dhaqaaqeen goobtii lagu ballamay. waxay u dan lahaayeen muuse iyo walaalkiis inay baqdin geliyaan, dadweynaha daawashada u yimidna ay indhadaraandar ku ridaan. qoladiisii ayuu fircoon qaylo kula dhex dhacay. wuxuu ugu yeeray inay u soo degdegaan maalinta ciidda xafladda la qaban doono oo dhinacyada iska soo horjeedaa inta ay ku tartamaan ay ku kala hadhi doonaan. waxaa goobtii soo buuxiyey dadweynihii oo ay la tahay faalalowyadu inay guulaysan doonaan. waxay ahaayeen dad ay baadinimadu ku gaamurtay, aqoon-darraduna ay ku fiday, sidaa darteedna ay saadaashoodu liidato. iyaga oo kibirsan oo aqoontooda kalsooni dheeraada ku qaba ayay sixiroolayaashii soo taxaasheen. oo maxay la kibri waayeen? siday islahaayeen ragga goobta u hadhi doona ee la isku halaynayaa sow iyaga maaha. fircoon bay ku yidhaahdeen, abaalgud ma kugu leenahay haddii aannu arrintan ku guulaysanno? suu wuxuu yidhi, haah, waxaan idin siin doonaa abaalgud, waana la idinsoo dhowayn doonaa. agtayda ayaad joogi doontaan, sidii aad rabtaanna ugu raaxaysan doontaan. barwaaqo iyo bashbash ayaan idin dhex gelin doonaa, maxaa yeelay waxaad markaa tihiin raggii ii garbeeyey ee aan taakuladooda ku liibaanay kuna adkaaday. sixiroolayaashii jawaabtaas way jeclaysteen. wixii loo ballanqaaday ayay la madax wareereen. kolkaasba iyaga oo degdegaya xagga muuse u soo jeesteen oo ku yidhaahdeen,
ma adiga ayaa ku hormaraya oo waxaaga tuuri doona mase annaga ayaa noqonna kuwa marka hore qalabkooda tuura. isaga oo aan falkooda dan ka lahayn arrintoodana fududaysanaya ayuu u oggolaaday marka hore xargahooda iyo owlahooda inay iyagu tuuraan. dantiisu waxay ahayd wax alla wixii aqoonsi xir ah oo ay kari karaan inay dibadda soo dhigaan, dabadeedna uu eebba awooddiisa soo banbixiyo, xaqana inta xaqdarrada ku dumiyo uu askaxda kaga dhigo. faalallooyaashii ayaa dabadeed dhulka ku tuuray wixii ay gacnaha ku haysteen. kolkaas bay muuse ula ekaadeen abeesooyin dulundulcaynaya oo kale. naftiisa ayaa sidaa ismoodsiisay, maxaa yeelay wuxuu ka cabsanayay dadweynuhu beentaas la dhoobdhoobay inay ku sirmaan, diinta uu sidana ay sidaa kaga jeestaan. markaas baa loo waxyooday, waxaa hortaada ka muuqdaa yaanay muusow kula weynaan. dhangadda yar ee aad sidato ayaa ka yaaba badan kana waxtaroon. eebbe ayaa ku larane dhulka ku tuur, rabbi idankii iyada ayaa liqi doonta dhammaan waxyaabaha beenta ah ee ay dhoobdhoobeene. waxa ay sameeyeen faalalow shirqoolkiis weeyaan, faalalowna weligiis ma liibaane. waxyigaas ayuu muuse ku xasiray, laabtuna ugu qabowday. ushiisii ayuu dhulka ku tuuray. kolkaas bay halhaleel waxay u dalamsatay giddii waxyaabihii beenta ahaa ee ay dadka maanka kaga xadeen. sixiroolayaashii ayaa durbadiiba xaqii indhaha ku dhuftay. hanuunkii iyo baadinimadii ayay kala garteen, xaqii iyo xaqdarradii ayay kala ogaadeen. wixii ay fali jireen ayay ka toobad keeneen, mucjisadii ay arkeenna way la weynaatay. markaas bay sujuud la wada dhaceen. fircoon baa maalintaasna dhab u ciishooday oo camal guhaadooday. waxa uu ka carooday arrinta lama firaankaa ee kiniisada ku noqotay. xidigiisu inuu dhicid ku dhow yahay ayuu dareemay. wuxuu filayay madasha la isugu yimid inuu isagu lib kala laaban doono oo awooddiisu ay ku adkaan doonto. ha yeeshee wuu mala khasaaray. indhihiisa ayuu ku arkay mucjiso uu la ashqaraaray, uguna muuqatay sidii duufaan xoog badan oo dhidibada u siibi doona boqortooyadiisa beenta iyo baadilka lagu alkumay. wuxuu fala ayuu garan waayey. jabka iyo ceebta la soo gudboonaaday inuu qariyo ayuu isku dayey. kolkaasuu sixiroolayaashii ku yidhi, ma aniga oo aan idiin oggolaan baydun muuse rumayseen, taladiisana madaxa u ruxdeen? hadduun baan wax ogaaday. shaki igama jiro arrintaana inay tahay mid awal hore la qorsheeyey oo idinka iyo isagu aad ku soo heshiiseen. dhabtii waa macallinkiinnii, waa kii idinku weynaa oo falkaba idin baray. waxaa maanta madasha ka dhacayna waa tashi aad wadartiinnu isku soo afgarateen. wixii aan idin faray ayaydun daba marteen, ballantii aan dhiganayna waad ka baxdeen. sababtaa darteed si isdhaafa ayaan gacnihiinna iyo lugihiinna u jarjari doonaa, geedaha timirta jirdahoodana waan idinka soo daldali doonaa. sidaas ayaan idin kadeedi doonaa, maxaa yeelay waad igu ballan furteen. barwaaqo wixii aan idin dabaalsiiyena waad dafirteen. awoodda aan leeyahay iyo xaddiga ballaaran ee caddibaadayda goor aan dheerayn ayaad arki doontaan. hase ahaatee raggaas mu'miniinta isu rogay goodigaasi wax saamayna kuma u yeelan. xoogga iimaankooda iyo ereyska nebinimada ayaa laabahooda adkeeyey. markaas buu eebba ka qaaday daboolka iyo mugdiga baadilka. tubtii toosnayd ee u muuqatay ayay ku mintideen. waxayna fircoon ku yidhaahdeen, waddada aad haysaa waddadii khayrka ma aha, raalligelintaadana abaalgud eebba nooguma jiro. ilayska noo baxay iyo xaqa noo muuqday adigana ha noqotee wax kale ku doorsan mayno. intii aad doonto goodi, weligaana noo dhaaro. waxaa tahay uun mid dadka baadinimo u horseeda. rabbigayo ayaannu rumaynay si uu nooga dhaafo dembiyadii aannu ku kacnay iyo falkii xumaa ee aad nagu qasabtay. isaga ayaa wax walba oo kale ka khayr badan oo ka jiritaan dambeeya. fircoon wuu dadaalay. guntiga ayuu dhiisha isaga dhigay. faalaloowyadii xilligaa noolaa ayuu isu wada keenay. wuxuu u baqayaa boqortooyadiisa, welina wuxuu rajo ka qabaa inuu muuse ka adkaado, dacwadiisana uu madashaa ku maamuustiro. hase ahaatee waxay ahayd riyo beena iyo habeenkii xalay ahaa oo tegey. habaas kor u duulay, qorraxda ma fadarayn karo. taliya manaxa ahina maamuuska ay cadaaladdu leedahay sina hoos uguma dhigi karo. madashii baa la isugu yimid. muuse ayaa dadkii goobta isa soo tubay jeedaaliyey. kolkaas baa waxa uga dhex muuqday kuwo badan oo falka ku tamcaaran. iyagii intuu hadalka u jeediyey ayuu ku yidhi, hoog iyo ba ayaa idin sugaaya haddii aydun eebba ku been abuurataan oo mucjisooyinka aydun sixir ku sheegtaan. haddii aydnaan si bareera fircoon ugu sheegin xaqa iyo elayska iftiinka badan. haddii aydnaan u kala qeexin waxa ay ku kala duwan yihiin falkiinna iyo mucjisooyinka aan anigu wataa. haddii aydnaan u kala soocin xaqdarradiinna iyo xaqa aan anigu muujin doono. wuxuu tacabkiisu ba'ay, hoogna u sugnaaday kiinii la dagaalanka xaqa ku dadaala, xaqdarradana u garbeeya. dhawaaq xaq ah oo dhegta faalalooyaasha toos ugu dhacay ayuu warkaas muuse ahaa.
daboolkii baadinimada ayay ka gilgisheen, laabtoodana wuxuu ka saaray wixii shirqoolla ahaa oo ay isaga la maaganaayeen. dacwadii xaqa ayay si dhab ah ugu nuglaadeen, waddadii hanuunkuna hagaag bay ugu muuqatay. amarkii fircoon ayay faalaloobyaashii u hoggaansameen. midkoodna madashii uu ugu yeedhay kama u maqnaan. kumayaal bay tirada gaarayeen, mid walbana xadhig iyo ul buu gacnaha ku sitay. iyaga oo diyaarsan oo aad nin qura moodo ayay ku soo dhaqaaqeen goobtii lagu ballamay. waxay u dan lahaayeen muuse iyo walaalkiisa inay baqdin geliyaan, dadweynaha daawashada u yimidna ay indhadaraandar ku ridaan. qoladiisii ayuu fircoon qayre kula dhex dhacay. wuxuu ugu yeedhay inay u soo degdegaan maalinta ciidda xafladda la qaban doono oo dhinacyada iska soo hor jeedaa inta ay ku tartamaan ay ku kala hadhi doonaan. waxaa goobtii soo buuxiyey dadweynihii oo ay la tahay faalaloobyadu inay guulaysan doonaan. waxay ahaayeen dad ay baadinimadu ku gaamurtay, aqoon darraduna ay ku fiday, sidaa darteedna ay saadaashoodu liidato. iyaga oo kibirsan oo aqoontooda kalsooni dheeraada ku qaba ayay sixiroolayaashii soo taxaasheen. oo maxay la kibri waayeen? siday islahaayeen ragga goobta u hadhi doona ee la isku halaynayaa sow iyaga maaha. fircoon bay ku yidhaahdeen, abaalgud ma kugu leenahay haddii aannu arrintan ku guulaysanno? suu wuxuu yidhi, haah, waxaan idin siin doonaa abaalgud, waana la idinsoo dhowayn doonaa. agtayda ayaad joogi doontaan, sidii aad rabtaanna ugu raaxaysan doontaan. barwaaqo iyo bashbash ayaan idin dhex gelin doonaa, maxaa yeelay waxaad markaa tihiin raggii ii garbeeyey ee aan taakuladooda ku liibaanay kuna adkaaday. sixiroolayaashii jawaabtaas way jeclaysteen. wixii loo ballanqaaday ayay la madax wareereen. kolkaasba iyaga oo degdegaya xagga muuse u soo jeesteen oo ku yidhaahdeen, ma adiga ayaa ku hormaraya oo waxaaga tuuri doona, mase annaga ayaa noqonna kuwa marka hore qarabkooda tuura? isaga oo aan falkooda dan ka lahayn, arrintoodana fududaysanaya, ayuu u oggolaaday marka hore xargahooda iyo owlahooda inay iyagu tuuraan. dantiisu waxay ahayd wax alla wixii aqoonsi xir ah oo ay kari karaan inay dibadda soo dhigaan, dabadeedna uu eebba awooddiisa soo banbixiyo, xaqana inta xaqdarrada ku dumiyo uu askaaxda kaga dhigo. faalalooyaashii ayaa dabadeed dhulka ku tuuray wixii ay gacnaha ku haysteen. kolkaas bay muuse ula ekaadeen abeesooyin dulundulcaynaya oo kale. naftiisa ayaa sidaa ismoodsiisay, maxaa yeelay wuxuu ka cabsanayay dadweynuhu beentaas la dhoobdhoobay inay ku sirmaan, diinta uu sidana ay sidaa kaga jeestaan. markaas baa loo waxyooday, waxaa hortaada ka muuqdaa yaanay muusow kula weynaan. dhangadda yar ee aad sidato ayaa ka yaaba badan kana waxtaroon. eebbe ayaa ku larane dhulka ku tuur. rabbi idankii iyada ayaa liqi doonta dhammaan waxyaabaha beenta ah ee ay dhoobdhoobeen. waxa ay sameeyeen faalalow shirqoolkiis weeyaan, faalalowna weligiis ma liibaane. waxyigaas ayuu muuse ku xasiray, laabtuna ugu qabowday. ushiisii ayuu dhulka ku tuuray. kolkaas bay halhaleel waxay u dalamsatay giddii waxyaabihii beenta ahaa ee ay dadka maanka kaga xadeen. sixiroolayaashii ayaa durbadiiba xaqii indhaha ku dhuftay. hanuunkii iyo baadinimadii ayay kala garteen. xaqii iyo xaqdarradii ayay kala ogaadeen. wixii ay fali jireen ayay ka toobad keeneen. mucjisadii ay arkeenna way la weynaatay. markaas bay sujuud la wada dhaceen. fircoon baa maalintaasna dhab u ciishooday oo camal guhaadooday. waxa uu ka carooday arrinta lama filaankaa ee kiniisada ku noqotay. xidigiisu inuu dhicid ku dhow yahay ayuu dareemay. wuxuu filayay madasha la isugu yimid inuu isagu lib kala laaban doono oo awooddiisu ay ku adkaan doonto. ha yeeshee wuu mala khasaaray. indhihiisa ayuu ku arkay mucjiso uu la ashqaraaray, uguna muuqatay sidii duufaan xoog badan oo dhidibada u siibi doona boqortooyadiisa beenta iyo baadilka lagu alkumay. wuxuu fala ayuu garan waayey. jabka iyo ceebta la soo gudboonaaday inuu qariyo ayuu isku dayey. kolkaasuu sixiroolayaashii ku yidhi, ma aniga oo aan idiin oggolaan baydun muuse rumayseen, taladiisana madaxa u ruxdeen? hadduun baan wax ogaaday. shaki igama jiro arrintaana inay tahay mid awal hore la qorsheeyey oo idinka iyo isagu aad ku soo heshiiseen. dhabtii waa macallinkiinnii, waa kii idinku weynaa oo falkaba idin baray. waxaa maanta madasha ka dhacayna waa tashi aad wadartiinnu isku soo afgarateen. wixii aan idin faray ayaydun daba marteen, ballantii aan dhiganayna waad ka baxdeen. sababtaa darteed si isdhaafa ayaan gacnihiinna iyo lugihiinna u jarjari doonaa. geedaha timirta jirdahoodana waan idinka soo daldali doonaa. sidaas ayaan idin kadeedi doonaa, maxaa yeelay waad igu ballan furteen. barwaaqo wixii aan idin dabaalsiiyena waad dafirteen. awoodda aan leeyahay iyo xaddiga ballaaran ee caddibaadayda goor aan dheerayn ayaad arki doontaan. hase ahaatee raggaas mu'miniinta isu rogay goodigaasi wax saamayna kuma u yeelan. xoogga iimaankooda iyo ereyska nebinimada ayaa laabahooda adkeeyey. markaas buu eebba ka qaaday daboolka iyo mugdiga baadilka.
tubtii toosnayd ee u muuqatay ayay ku mintideen, waxayna fircoon ku yidhaahdeen, waddada aad haysaa waddadii khayrka ma aha, raalligelintaadana abaalgud eebba nooguma jiro. ilayska noo baxay iyo xaqa noo muuqday adigana ha noqotee wax kale ku doorsan mayno. intii aad doonto goodi, weligaana noo dhaaro. waxaa tahay uun mid dadka baadinimo u horseeda. rabbigayo ayaannu rumaynay si uu nooga dhaafo dembiyadii aannu ku kacnay iyo falkii xumaa ee aad nagu qasabtay. isaga ayaa wax walba oo kale ka khayr badan oo ka jiritaan dambeeya. wuxuu fircoon la amankaagay mucjisadii muuse ee uu isagu falka ku sheegay. kolkaa ayaa mar qura waxaa naftiisa ku kulmay laba dareen oo aan la xakamayn karin. waxay ahaayeen sii jiridda boqortooyadiisa iyo muuse la dagaalankiisa oo uu dhab ugu dadaalo ilaa uu guulka gaaro. wax walibayna sida uu isagu rabo ay ku dambeeyaan. wuxuu ahaa nin madax adag oo dafiridda xaqa ku fogaaday. sidaa darteedna waxaa isaga oo kale laga filan karaa inuu si walba ugu mintido haysashada awooddii xaddiga weynayd ee gacmaha ugu jirtay iyo hantidii ballaareed ee uu lahaa. naf gaalnimadu ku gaamurtay ayuu ahaa. taas baana ku dirqiyaysay inuu u halgamo sidii uu uga adkaan lahaa ninkan isku soo dhereeriyey ee awooddiisa aqoonsan waayey. canaadkiisii ayuu ku adkaystay. madaxyaweyntii qoladiisa ayuu la tashaday. markaasba iyaguna ku guwaabiyeen inuu muuse iyo tolkiis wax ka qabto. haddii kale ay arlada hallayn doonaan, isagana ay ka jeensan doonaan. waxay ahayd tale uu u guuxay. maalintaa kadibna wuxuu aad u kordhiyey dulmigii uu dadka ku maamuli jiray. intuu ka badbadiyey ayuu soo saaray go'aan silloon oo naxariis darro oo idili ay ku dhan tahay. wuxuu yidhi, wixii lab ah oo qolada muuse u dhashaba waannu dili doonnaa, wixii dhadig ahna waannu iska dhaafi doonnaa. hoog iyo ba iyo gardarrooyin iyaga oo kale aan la arag ayuu ku falay. markaas bay xagga muuse u carareen si uu uga celiyo gaalkaas naxariistaba qalbigiisa laga siibay iyo dhibaatooyinkii uu u geysanayay. waxay ku yidhaahdeen, muusow, ka hor intii aanad noo imaan waannu dhibbanayn, hadda oo aad nala joogtana waannu dhibbannahay. nabadgelya korkiisa ha ahaatee, rasuulkii eebbe ayaa dabadeed laabta u qaboojiyey oo u caqli celiyey. wahankii hayey ayuu kala direeray, wuxuuna ugu bishaareeyey wanaag iyo badbaado ku soo fool leh oo ay nasiib u yeelan doonaan. wuxuu ku waaniyey rabbi inay kaalmo weydiistaan, samirna u heshadaan. wuxuu u sheegay dhulka inuu eebbe leeyahay, ciddii uu doono uu isagu dhaxal siiyo, cidhibta dambana kuwa isaga ka cabsadaa ay yeelan doonaan. sidaas ayuu muuse yidhi, isaga oo aan marna ka hakan fidinta farriinta eebbe, kuna howlan habkii iyo hannaankii ay qoladiisu ku badbaadi lahayd. xagga rabbi ayuu u jeestay, isaga oo ku hubaysan niyad bir ah, iimaan aan dhaawacnayn iyo xasillooni buuxda. rag ka tirsan madaxyaweynta qoladiisa ayuu fircoonna la shiray. waxay ka tashanayeen sidii ay muuse u dili lahaayeen. kadib markii ay xeel iyo shirqool kasta ka quusteen, irdihii kale oo idilna ay ka soo oodmeen, ayay istuseen dilkiisu inuu yahay habka ugu fudud ee boqortooyadoodu ay ku badbaadi karayso. taladaas iyada ah, iyaga oo ka baaraandegaya sidii nebiga loo dili lahaana qaadaa dhigaya, ayaa waxaa ka dhex kacay nin gobannimo iyo geesinimoba la isugu daray. ninuu eebbe garaadkiisa ilayska hanuunka ku riday oo waddada iimaanka daboolka uga qaaday. ninkaas ayaa si aan la arag oo aan la maqal muuse u daafacay. fircoon iyo madaxyaweyntana ugu muujiyey sida ay u habowsan yihiin ee ay ugu gabsan yihiin tashiga silloon ee ay isku raaceen. wuxuu ku ceebeeyey, allahay waa alla nin ku dhawaaqay, ulana yimid xujooyin cadcad oo uu rabbigood ka wato inay dil abaalmarin uga dhigaan. wuxuu ku yidhi, haddii uu been sheegayo isagay jirtaa, haddii uu run sheegise waxaa idin haleeli doona waxa uu idinkugu goodiyaya qaarkood. eebbana xaqa ma tuso ruux kasta oo xadgudba beenna badan. ninkaas oo la baxay muuminkii reer fircoon wuxuu haddana qoladiisa xusuusiyey awoodda eebbe iyo qabashadiisa aan cidina hor joogsan karin. wuxuu uga digay hoog la masa ah kii ummadihii hore ku dhacay, qoladii nuux, qoladii caad, qoladii samuud iyo kuwii ka dambeeyeyba. rabbi inuusan addoommada gardarro ku cadaabin kuna caddimin ayuu u sheegay. wuxuu ku cabsigeliyey dhalaarta qiyaame ee cid iyaga eebbe ka celin kartaana aanay jirin. wuxuu kaloo xusuusiyey markaas ka hor nebi yuusuf inuu xujooyin cadcad ula yimid, ha yeeshee wixii uu u keenay ay ka shakiyeen. kolkuu geeriyoodayna ay ku andacoodeen isaga kadib eebbe inaannu rasuul dambe soo diri doonin. dood xaq ah
oo dhidiba'da ku taagan ayay ahayd. Ha yeeshee reer fircoon way ka santaageen oo gaashaanka u daruureen. waxayba isku dayeen inay qudhiisa soo duwadaan, toodana ay yeelsiiyaan. markaas buu wuxuu ku ceebeeyey isagu inuu iyaga badbaado la doonayo, iyaguna ay isaga cadaab ugu wacayaan. eebbe inaan ku gaaloobo, awooddiisana aan cid kale la wadaajiyo ayaad iigu baaqaysaan. aniguna rabbiga uunkiisa ka adag ee dembidhaafka badan ayaan idinkugu yeerayaa, ayuu ku yidhi oo ugu caqli celiyey. wuxuu u sheegay, dhabtii waxa aad iigu wacaysaani adduun iyo aakhira toona sal kuma laha. xagga eebbe ayaannu u noqon doonnaa, dad naareedkuna waa kuwa xadgudba. waxa aan hadda idin leeyahayna kol dambe ayaad xusuusan doontaan. aniguna arrintayda eebbe ayaan u bandhigayaa. eebbana waa eebbe addoommadiisa dhab u arka. ninkaas iyo hadalkiisa wanaagsanba way mashiiqsadeen. meel aysan filaynin ayuu kaga soo baxay, wuxuuna u muujiyey talada wacani sida ay uga lunsan tahay. way la coloobeen, doqonnimona way ku tilmaameen, inay dilaanna wayba isku dayeen. ha yeeshee eebbe weyne ayaa shirqoolkoodii ka badbaadiyey. reer fircoonna cadaab midka ugu daran ayaa ku dhacay. isaga oo goodiya dhaar aan midna dan ka lahayn kana baqaynin ayuu muuse fidinta dacwada eebbe wax walba u huray. fircoon ayuu ugu yeeray allihiis inuu rumeeyo, cirarka iyo dhulka eebbihii abuuray inuu u noqdo, reer israa'iilna intuu faraha ka qaado uu isaga ku daro. hase ahaatee taasi waxay ahayd arrin ku adag ninkaas qooqay ee naxariista laga siibay. markaas buu ka sii daray oo kibirkiisa kibir dhaafay. wuxuu meel ku soo urursaday koox habowsan oo qoladiisa ka mid ah, nolosha quursiga iyo addoonsigana qaayibay. koox uu doonayay inuu awooddiisa tuso, dabadeedna gaalnimada iyo dulligaba uu ku nageeyo. intuu kooxdaas isdhex taagay ayuu ku yidhi, tolow, boqortooyada masar iyo webiga hoostayda dareeraya sow anigu ma lihi. miyaydnaan wax arkayn? bal hadduu run sheegayo waa muuse, maxaa korkiisa qoolal dahab ah loogu soo daadin waaye? amase markii uu noo imaanayey malaa'igta iyo isagu maxay isu soo raaci waayeen? kooxihii uu hadalkaa u jeedinaya waxay ahaayeen kuwa ugu khayrka daran dadkii u tirin jiray, kuwii baadinimada iyo gadarrada ku taageeri jiray, cududdana ugu ahaa. sidaa darteed madaxa ayay hadalkiisa u wada ruxeen, wax walbana way ku raaceen. waxay ahaayeen daacadda ee baduul ka baxay. ma harin hadal la is yidhaahdaa, useete dheerayn iyo dulqaad dambe oo fircoon loo yeeshaana dhammaade. wuu kibir dhaafay, qoraxda oo barqadii joogtana jiritaankeedii ayuu dafiray. ciqaabtii, dullayntii iyo quursigii uu reer israa'iil ku hayn jiray ayuu sii laban laabay. bac kastana wuu ku falay. maalintaas baa muuse la faray fircoon iyo qoladiisa inuu gaarsiiyo goodiga eebbe oo ah inuu cadaabtiisa dhadhansan doono, gaalnimadooda iyo dullaynta reer israa'iilna uu ka goyn doono. maalintaas bay ciqaabtii eebbe ku bilaabatay. hantidii, tarankii dadka iyo midhihiiba waa laga kala dhantaalay, waana laga aafeeyey. biyihii webiga niil ayaa guray, waxtarkiisiina wuu yaraaday. dhulkii markuu u waraabin waayey ayaa waxaa ka gabaabsiiyey dalaggii uga soo bixi jiray. baahi baa kolkaa la soo wada daristay. dabadeed roobbaas cirka kaga yimid ayaa inta duufaan isu rogay ku dhuftay, kaas oo bar iyo beerba ka waxyeeleeyey. waxaa haddana ku degey ayax midhihii iyo ubaxiiba nag ka dhigay. misna waxaa lagu yaaciyey in jir jiif iyo nasiinaba ay ku waayeen. rah noloshii u dacareeyey ayaa haddana ooda looga soo qaaday, kaas oo cuntadooda iyo cabbitaankoodaba uga hormaray. dharka kolba kii ay xirtaanna u dhexgeli jiray. sidoo kale waxaa lagu ciqaabay goror iyo dhiig samankooda mar walba ka hoora. xoolahoodii ayaa ugu dambaystii loo soo dhigtay oo rabbi eber ka dhigay, taas oo ah abaalmarin gaalnimadooda iyo dembiyadooda ay ku mutaysteen. kolkii uu cadaabkaasi xanuujiyey ayay muuse u tageen, kana codsadeen inuu rabbigii u baryo si uu dhibaatada hayse uga faydo. waxay u ballan qaadeen dhibaatadaas haddii uu ka koriyo inay rumayn doonaan, reer israa'iilna ay ku dari doonaan. biladii ku habsatay ayuu eebbaweyne maalintaa ka qaaday. ha yeeshee ballantii ay nebiga la galeen way ka baxeen, sidaas bayna axdilaawayaal ku noqdeen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. indha uu wax ku arko kii lahaaba waabaa u beriyey. hanuunkii iyo baadinimadii ayaa reer israa'iil u kala caddaaday. rasuulka eebbe ee wanaagsan ayay xaggiisa u janjeersadeen oo dhinaca saareen, waxayna ugu xisheen hanuun iyo weliba naxariis ay ku ogaayeen.
si walba qolo loo duleeyey, jaad walba oo ciqaab ahna la mariyey ayay ahaayeen. markaas bay dulqaad u yeesheen kadeedkii ay ku noolaayeen. astaantii xaqu kolkii ay u muuqatay ayay indhihii u furmeen. iimaan baraxla ayaa laabta uga buuxsamay. kolkaas bay degeni iyo xasil ka heleen. goodigii fircoon ayay u dhegtaagi waayeen. digta iyo damtiisuna marnaba wax cabsi ah ma ay gelin. waxay ku dadaaleen sidii ay masar uga qaxi lahaayeen, ee ay kuna nabadgeli lahaayeen, daalimiintana kaga fogaan lahaayeen. goor ay fiid tahay ayuu muuse la dhaqaaqay, una horkacay arlada muqaddaska ah. rabbi sodcaalkii ayuu u fududeeyey, waddadiina taaka taako ayuu uga dhigay. waxay socdaanba dhulkii biriga ahaa ee masar markii ay idleeyeen ayay ku soo beegmeen bad hortooda ka bulxamaysa iyo mawjado isgaraacaya oo meel laga maraa aana jirin. markaas bay xeebtii istubeen. baqdin ayaa isugu timid, talana way ka wansiixday. warwar iyo walaaca bay la hanqaarmeen. taasina gar bay ahayd, maxaa yeelay fircoon iyo ciidan wixii uu lahaa ayaa ku soo raad jooga. waa kuwaa soo kabtiyaaya, marna soo kadlaynaya. wax yar kadibna waxaa hubaal ah inay ku soo dhowaan doonaan oo ay la soo joogsan doonaan. siday fircoon la ahayd, reer israa'iil waa buddood fakad ah iyo addoon seera goys ah. ciidan xoog leh oo fardooley iyo lugbale intuu diyaarsaday ayuu muuse iyo intii la socotay ku soo raad qaaday, ilaa uu u soo jirsaday meel aan wax weyn ka fogayn halkii ay tubnaayeen. wahan xaddhaaf ah ayaa markaa reer israa'iil la soo darsay. waxaa argagax ku riday baqdin ayay ka qabaan baaba'a ay mudan doonaan haddii ay cadowgooda u gacan galaan. sow geeriyey isha baalkeeda uma soo joogsan. dabinnadii fircoonna sow uma daadsana oo markii ay ku dhici lahaayeeni kuma soo dhowaan. iyaga oo sidaas u warwarsan, una wareersan, meel ay wax ka qabtaanna garan la, ayaa waxaa dhexdoodii ka yeedhay cod ay ka argagaxeen iyo dhawaaq daryaankiisa lala ashqalaalay. cod canaani ku jirto oo eedayni ay ka buuxdo. cod hiildoon ah, isla markaasna ay quusi ku laran tahay. waxa uu codkaasi ka soo yeerayay nin la odhan jiray yuushac ina nuun oo qolada muuse ka mid ahaa. wuxuu leeyahay, nebigii allihiis la hadli jirayow, meeday taladaadii? maxaad nala sugaysaa? waatan oo dhib oo idili isugu kaaya timide, maxaad nala dhowraysaa? hortayada waxaa ka muuqdaa waa baddii, waxaa nagu soo raad joogaana waa colkii. maantana meel geeri looga baxsadaa ma muuqato. muuse ayaa markaa ku jawaabay, badduna waa halkii la ifaray inaan idiin horkaco. shakina iigama jiro wixii aan hadda kadib yeeli lahaa in la ii sheegi doono. hadalkaa rasuulka ayaa qoladii rajo cusub ku soo celiyey. waxayse ahayd rajo gaaban oo durbadiiba soo oodantay, quus iyo niyadjabna isu rogtay. waxaa ku habboonaa ballanqaadka nebigooda intay aaminaan inay eebbe isu dhiibaan, taladiisana ay u hoggaansamaan. waa wax la hubo rabbi naxariistiisa inuu ugu deeqi doono, cadaadiska daalimiintana uu ka badbaadin doono. maalintaas buu eebbe muuse u waxyooday oo ku amray inuu ushiisa badda ku dhufto. isna amarkii intuu fartoomay ayuu ku dhuftay. markaas buu mugdiga ilays isu rogay, quustii ba'naydna ay hididiile macaan isu beddeshay. markaas buu halkii ay biyuhu ka gureen rabbi ka bixiyey 12 waddo oo 12 jilib ee reer israa'iil jilibba waddo loogu talagalay. markaas buu haddana qorraxda iyo dabaysha adeejiyey oo dhulkii qoyanaa ee ay daadadku qooyeen ku qallajiyey, si uu u noqdo meel lagu socon karo. iyaga oo ay kashu u qabowdahay oo eebbaweyne isku hadlaynaya ayay markaa dhabbayaashii loo jeexay cagta saareen. rabbi ayaa rasuulkooda badbaado ugu yaboohay markii uu u sheegay bartamaha badda inuu waddo uga bixin doono wax uu ka baqaa. halkii ay ku nabadgeli lahaayeen ayay jilibadii reer israa'iil degdeg ugu xusul duubeen. col soo gaara cabsi kama ay qabin, maxaa yeelay waddo walba labadeeda dhinac ayay sidii buur weynaatay biyihii isku gudbeen. ciidan eebbe oo aan cidina hawaysan karin ayay ahaayeen. waxay tallaabada hoosta ka boobaanba, iyaga oo si walba u badqaba ayay gaadheen geddigii kale ee badda. neef kulul baa ka soo kuday. halistii ay ku sigteen intay ka nabadgaleen ayay filan waayeen.
gadaal iyo meeshii ay ka yimaadeen ayay dib u jalleeceen. markaas bay indhaha ku dhifteen fircoon iyo ciidankiisii oo isu diyaarinaya iyaguna inay badda ka soo gudbaan soona qaadaan isla dhabbayaashii ay reer israa'iilna soo qaadeen. way garan karaan oo waxay ku tashan yihiin intay soo gaaraan oo qabqabtaan inay dib ula noqdaan, dabadeedna ciqaabta midda ugu xun ay mariyaan. reer israa'iil baqdintii baa ku soo noqotay. daruurtii nabadgelyada ee haddeer dhow ay hoos harsanayeen ayay dushooda ka waayeen. waxay ka cabsanayeen badda halkii ay ka soo gudbeen intuu fircoonna ka soo gudbo inuu soo gaaro, kol labaadna ay gardarrooyinkiisa eedaan. markaas bay xagga muuse u wada jeesteen, iyaga oo quudaraynaya rabbigiis inuu ka faydo hoogga iyo ba'a afka ku soo kala haya iyo gumaadka uu cadowgu la maagan yahay. nabadgelya korkiisa ha ahaatee, rasuulkii ayaa markaa iskula hadlay inuu badda ugu baaqo sideedii hore inay ku noqoto, si ay iyaga iyo fircoon u kala dhex gasho, si ay u noqoto gaashaan ay kaga gabbadaan cadaadiska goob walba iyo goor kasta lala dul joogo ee aad mooddo inuusan dhammaadkaba lahayn. isla markii uu tashigaasi maankiisa soo galayba, rabbi ayaa u waxyooday oo ku yidhi, baddu sida ay haatan tahay u daah, ushaadana ha ku dhufan, si aanay waxba isaga beddelin, maxaa yeelay qorshuhu ma aha inta ay idinkala dhex gasho iyaga oo nabad qaba inay guryahoodii ku laabtaan. waa fog oo fogaan badan ayuu rabbi go'aamiyey kuwaasi inay yihiin ciidan hafasho ku le'an doona oo la maanshayn doono. fircoon iyo ciidankiisina dhinacyada ayay jeedaaliyeen, mise waddooyinkii badda oo wada toobiye ah ayaa hortooda ka muuqda. maxaa kolka u diidaya tubahaas inta ay ku dhacaan inay reer israa'iil soo qabqabtaan, hadhowna isla iyaga ku soo noqdaan? kibir iyo isyaalyeel baa garaadkii kala tegay oo way isla weynaadeen. wuxuu fircoon maalintaa ciidankiisii ku yidhi, bal eega sida ay baddu sheexada u yeelatay ee amarka aan siiyey intay u raacday ay labada qaybood ugu kala dhambalantay. bal dhugta sida ay maanyadu iiga dambayso ee ay iigu sahlayso kuwa iga fallaagoobay soo qabqabashadooda. saaxiibbadii fircoon ee baadinimada ku fogaaday waxay arrintaa u qaateen mucjiso uu leeyahay oo isaga u gaara. markaas bay awooddiisa isku halleeyeen oo siday ugu adeegi lahaayeen dhab ugu hagarbaxeen. iyaga oo degdegaya oo qabqabashada reer israa'iil u kala ordaaya ayay tubihii toosnaa ee badda ku dhaceen. bartankeeda kolkay marayaan ee halkuu moolku ahaa ay ku urursan yihiin ayay hirarkii meel walba kaga soo jabeen, dhammaantoodna uu eebba goobta ah ku maansheeyey. cid walba oo kale ayay dabadeed u noqdeen tusaale lagu taamilo qaato. kibirkii iyo isla weynidii ayuu fircoon saacaddaa iloobay, wuxuuna mar qura garwaaqsaday arrin muddo dheer ka maqnayd amaba uu isdiidsiin jiray. xaaladda uu ku jiro ayuu u fiirsaday, markaas buu ishubsaday inuu yahay addoon awood kooban oo tala xun, taag iyo tabar uu leeyahayna aanay jirin. daboolkii weynaa ee indhaha ka saaraa ayaa ka faydmay, qalbigiisana iftiin yar oo xaqa ka soo dhambalmay ayaa u dusay. wakhtigaa murugada badan ayuu fircoon eebbe rumeeyey. wuxuu ku dhawaaqay eebbaha ay reer israa'iil rumeeyeen mooye inaan eebbe kale oo xaq lagu caabudaa jirin, kuwa u hoggaansanna uu isagu haatan ka mid yahay. waase goorma? waa goor xeero iyo fandhaal ay kala dhaceen. rabbi kama aqbalin. wuxuu ahaa nin ifka ku qooqay oo madax adayg iyo naxariis darra ku caanbaxay. wuxuu ahaa nin uunka eebba tabaaleeyey oo aan weligii cidna bixin, gardarraduna ay sidii malab u tahay. wixii uu galabsaday ayuu rabbi ka abaalmariyey, caddibaaddii uu mudnaana waa la dhadhansiiyey. baddii ayaa isu soo noqotay. mawjado cartamaya oo cabbaar kala maqnaa ayaa haddana ishirdiyey, iskuna darsamay. cod argagax leh oo isu soo noqoshada biyaha ka dhashay kolkii ay maqleen ayay reer israa'iil muuse weydiiyeen daryaanka ay maqleeni waxa uu yahay. markaas buu ku yidhi, eebbe ayaa fircoon iyo intii la socotayba baabi'iyey, baddana ku maansheeyey. markaas bay la soo baxeen dabeecad xun oo naftooda ku gaamurtay iyo baadil laabtooda ku xididaystay oo garaadkooda kala dhantaalay. waxay rasuulkii ugu jawaabeen, muusow, fircoon ma dhiman, mana dhiman doono. baadilkii qalbiyadooda mirirka ku daboolay ayaa hadalkaa ka keenay. iska sadaa, fircoon waxa moodeene inuu awood leeyahay ha u maleeyeene, iska dhaaf.
beentooda aan nuxurka lahayn ha shubeene dan ha u gelin awooddii eebbe ayaa timid oo tanahe bal isha ku hay xooggiisa xaddhaafka ahi ayuu sibiq kugu dhaafine bal dhug u yeelo baddii ayaa la amray markaas bay raqdii fircoon xeebteeda ku soo tuftay waa si loo soo afjaro hadal kasta oo isaga hiil u noqon kara amaba wuxuun ugu fillaan kara waa si aan loogu andacoon inuu adduun kale u wareegay kuna nool yahay waa si wixii ku dhacay aan looga been sheegin oogadaas baaba'day iyo awooddaa burburtay ayay mawjaduhu daadxoorta sideedii dibadda u soo tuureen sidaas ayuuna rabbi ku aamusiiyey carrab kasta oo edab daran amaba taagtiisa ballaaran uu shaki kaga jiray yaab iyo amankaag ayay markaa reer israa'iilna afka la kala qaadeen waxay u qaadan kari waayeen ba'a qabsaday boqortooyadii ay waaritaanka u fili jireen ee ay xoogga ciidamadeeda la ashqaraari jireen indhahooda ayay ku arkeen fircoon iyo madaxdii dawladdiisa oo inta la maansheeyey ay cadibaaddii eebbe ku dul habsatay xilligii reer israa'iil ma jirin qolo sidooda oo kale uu eebbe u barwaaqeeyey oo uu u barakeeyey fircoon oo muddo dheer si walba u cadibi jiray ayuu rabbi ka badbaadiyey iyaga oo arkayana isaga iyo ciidankiisii ayuu baabi'iyeyoo huf ka dhigay wuxuu ka yeelay dad gob ah iyagoo awal hore ahaan jiray addoommo dulli ku nool wuxuu rabbi dhexdooda ka soo saaray tiro nebiye ah oo hanuun u keenay iyaga oo markii hore ahaa kuwo ay aqoontoodu gaaban tahayoo baadinimo ay harsatay dhadhaabtii ayuu u kala jeexay wuxuuna u soo dejiyey malab cid iyo hilib shimbireed ummadaha kale oo idil wax aan loogu deeqinna waa loogu deeqay si uu u sii barwaaqeeyo wuxuu eebbe nebigiisa muuse ugu waxyooday inuu u horkaco iyaguna ay furtaan dhulka muqaddaska ah ee gobolka shaam ka tirsan waa dhulkii yabooha ee nabadgelya korkiisa ha ahaatee nebi ibraahim uu eebbe u ballanqaaday inuu u gacangelin doono warasadiisa kuwooda wanaagsanee shareecadiisa oo koboon ha yeeshee reer israa'iil waxay ahaayeen qolo sanka laga tolay oo quursiga qaayibtay qolo in la hoggaansado oggolaatay oo inna wax dhiidhi ahi aanu naftooda ku jirin waxay ahaayeen qolo aanay rarashadu waxba la ahaynoo dullaysigii fircoonnada iyo dulmigii taliyayaashu ay jilciyeen qab oo idilna ay maskaxdooda ka tirtireen waxay u ekaayeen duul waayo hore geeriyooday oo qalfoof maran un ah dhaawac dambe oo loo geystaana aanu danqi karin xanuujinna karin mar alla markay maqleen ereyga duulaanka amaba ereyga dalfurashada markii la faray inay galaan magaalada ariixa oo ay ka eriyaan qolooyinka xaysiyiinta iyo kancaaniyiinta ah halkaasna ay ka dhigtaan dhul ay degaan oo iyaga khayr iyo barako badan u leh markay arrintaa ogaadeen ayaa waxaa soo shaacabaxay fulaynimo taagdarro iyo qabyari wixii naftooda ku abuuraa waxay muuse u sheegeen dhulka uu ku duulinayo inay deggan yihiin qolo aan loo birdhigi karin sidaa darteedna aysan iyagu gelaynin tan iyo inta ay qoladaasu ka baxayso waxa ay geli doonaan oo qura haddii ay qoladaasu ka baxdo waxaad mooddaa inuu damac ka hayey mucjisooyinkii ay u barteen inta loo adeejiyo in qolada magaalada haysata shidayaari bannaanka looga saaro waxay malaha rajo ka qabeen inay dhulka furtaan iyaga oo aan waran tuurin oo aan dhaawac yarina eebbe dartii ku soo gaarin taasina waa caadada kuwa fadhiidka ah ee taagta daran isna fulayada ah hase ahaatee intooda badan waxa aan la mid ahayn kana duwanaa laba nin oo eebbe qalbigooda iimaan ka buuxiyey laba nin oo rabbigood u hoggaansanaa daacaddiisana aan marna ka bixin qoladoodu wixii ay qabtay ma ay qabin sidii ay u hadleenna way ku diidanaayeen waano iyo waxusheeg ayay ula jeesteen waxayna isku dayeen jidka hanuunka inay ku duwaan waxay ku booriyeen albaabkeeda intay abbaaraan inay magaalada galaan iyaga oo u sheegay haddii ay sidaas yeelaan inay iyagu guusha yeelan doonaan waxay ugu dambaystii ku waaniyeen rabbi inay tala saartaan haddii ay yihiin kuwo isaga hadalkaas nuxurka lihi reer israa'iil waxba uma u tarin waxay dib ugu noqdeen sheekadii fulaynimada iyo baqdinta waxayba ku soo kordhiyeen edabdarro canaad doqonniine iyo isyaalyeel hadal aan la xamili karin oo laga danqado ayay nebi muuse u soo jeediyeen waxay ku yidhaahdeen inta ay qoladaasu magaalada ku jirto annaguna weligayo iyo allahayo geli mayno annagu halkan baannu iska joogi oo aannu iska fadhiyaye kacoo adiga iyo rabbigaa dagaal taga oo
ku duula. muuse ayaa hareerihiisa eegay oo wixii tubnaa ka fiiriyey cid uu isku halleeyo iyo koox uu hiil weydiisto. walaalkii haaruun cid aan ahayn oo u garbaysa ayuu waayey. waa laba ruuxoo keligooda oo tol wax u lileeye iyo taagba meel cidla ah ka taagan. waxaa hor jooga col xoog leh, awooddiisu ay xaddhaaf tahay oo ciidan badan ka kooban. markaas buu xagga eebbe u jeestay oo af labadii yeedhay, eebbow, naftayda iyo haaruun cid aan ahayni gacan iguma jirtee, annaga iyo qolada daacaddaada ka baxday na kala gee oo ur noo kala bix. maalintaa buu Rabbi u waxyooday oo ku yidhi, muusow, duulkaas faraha ka qaad. waxaan ku xukumay inuu dammaad ku dhaco oo ay lamadayaanka ku kala firdhaan. muddo 40 sano ah ayay salka meelna dhigi waayeen. dammaadkaa ha ku jireen inta ay qabjabayaan oo kuwa haatan madaxda u ahi ay dhammaanayaan. sidaas ha isaga daba tageen inta ay u soo baxayso dac cusub oo ka dhiidhigi karta dullaysiga, duulaanka iyo jahaadkana aan ka waaban doonin. haatanna waa sheekadii sacii ay reer Israa'iil ku fidnoobeen ee iyaduna xiriir la leh sheekooyinka nebi muuse ee qur-aanka ku soo arooray. waxay ahayd duqii reerka ayaa gaboobay. wuxuu dhab u dareemay maantii uu dhiman lahaa inay soo dhowaatay. addoon wanaagsan oo dhaldhalaalka nolosha aan ku hodmin ayuu ahaa. addoon eebbihiis kalsooni weyn ku qabay. hanti adduun wuxuu ka lahaa sac uu subaxdiina foofsado, habeenkiina uu soo hoysado iyo wiil madi ah. korkuu xidhada keeno ayuu qalbi iimaan buuxiyey Rabbi ula jeestaa, kuna ducaystaa, eebbow, sacaas baan kula magan galay, inta uu wiilkaygu ka koraayo u ilaali oo ku sin. waxuu sidaas ahaadaba maalintii dambe ayuu duqii geeriyooday. wiilkiina wuxuu u haray sacii oo qudhiisu ahaa hanti adduun oo aan isku hallays lahayn. naxariista eebbe ayaa xolo oo idilka wanaagsan, kana raandhiis wacan. maalintaas buu wiilkiina bilaabay inuu sacii dhaqaalaysto, isaga oo mar walba ku dhaadanaya magacii wanaagsanaa ee uu aabbihii ka dhaxlay. guurtida reer Israa'iil waxaa ku jiray oday isaguna aad hodan u ahaa oo eebbe barwaaqo adduun oo idil u gacan geliyey, dad oo dhanna ka lahaa inan madi ah oo waxaas oo hanti ah keligiis u hadhi doona. ha yeeshee ilma adeeradii oo sabool u badnaa ayaa odagii xasday oo hantida uu haysto u quuri kari waayey. iyaga oo wada jira ayay weerar ku soo qaadeen oo duqii gowrac ugu jiideen. dabadeedna intay qolo kale ku masabiteen ayay weliba dhiiggiisiina u sheegteen. colaad kulul baa oogantay. warmihii baa la isu looshaday, dagaal ba'anna waa la isu diyaariyey. markay ribatay oo ay tada cirka isku shareertay ayay waayeen nebi muuse mooyee meel kale oo ay u ciirsadaan. inuu u garnoqo duqa la dilay cidda dishayna uu isagu u sheego intay goosteen ayay xaggiisii u kaceen. nabadgelya korkiisa ha ahaatee, nebi muuse ayaa eebbihii arrintii loo soo kaashaday isna wax ka weydiiyey. dabadeedna wuxuu qoladiisii u soo faray inay sac gowracaan. sacaas carabkiisa inay ninka meydka ah ku garaacaan, markaasoo intay noloshu ku soo noqoto uu isaga qudhiisu ciddii dishay u sheegi doono. duul caqligii laga siibay ayay ahaayeene taasi way la ahaan weyday. waxayna u qaadan kari waayeen awoodda eebbe inay wax walba suuro gelin karayso. waxay u qaateen inuu muuse ku jeesjeesaayo, garashadoodana uu yasaayo. markaas bay ku afnaqeen oo la murmeen. dabadeedna wuxuu ku yidhi, Rabbi ayaan ka magan galay kuwa aqoonta daran inaan ka mid noqdo. maalintaas uu rasuulkoodu amray hadday sac cuun soo qabsadaan oo ay gowracaan uu ku filaan lahaa. ha yeeshee murankii ayay badiyeen. su'aalo aan loo baahnayn oo saca ku saabsanna way soo jeediyeen. markaas buu Rabbi arrintii ku adkeeyey oo sacii ay gowraci lahaayeen looga dhigay mid leh calaamado gaar ah. kumase ay waantoobine way ka sii dareenoo muramadoodii sii kordhiyeen. runtii arrintani waxay ahayd mid maskaxda caadiga ah ee aadanaha ka weyn, iyaga garaadkooduna aanu suurayn karin. waxay isweydiiyeen su'aal baadinimadooda muujinaysa oo ahayd, sacaani waa mid sidee ah? ma lo'dii aan naqiinay mid ka mid ahbaa, mase waa mid ka duwan oo astaamo u gaara leh? eebbe ayaa kolkaa u iftiimiyey oo u sheegay saca laga rabo inay gowracaani inuu yahay mid ay da'diisu dhexdhexaad tahay oo aan duqna ahayn, qaalinna ahayn. waxaa lagu amray, waxaa la faray inay fartoomaan. ha yeeshee warkaasi wuu qancin waayey. waxayna muuse ku yidhaahdeen, rabbigaa noo bari si uu saca midabkiisa noogu caddeeyo. wuxuu yidhi, eebbe waxa uu idin leeyahay, sacu waa sac aad cillaan guduud u ah
oo ruux kasta oo indhaha la raaca farax geliya. waxbase uma ay tarin jawaabtaas eebbe ee la yaabka lehi. tilmaantaas buuxdana waxay ka qaadeen uun wareer iyo demani siyaada ah. caqligii baa dabool culus laga saaray. waxba way u kala caddaan waayeen. kolkaas bay su'aashoodii hore ku soo celiyeen, iyaga oo ku andacoonaya inay lo'dii isaga ekaatay oo ay u jeel qabaan eebbe inuu tubta toosan ku hanuuniyo. waa loo sii qeexay, waxaana loogu jawaabay inuu yahay sacaan loo carbin qodaalka beeraha iyo waraabintooda toona, sacaan innaba ceeb lahayn oo midabkiisa asalka ah aan ku kale ku dheehnayn. neefka tilmaamahaas le waxay raadiyaanba muddo kadib ayay ka ag heleen inankii agoonka ahaa ee uu eebbe saciisa u barakeeyey. xoolo fara badan ayay kaga iibsadeen, wayna gowraceen, inkastoo shaki iyo walaac badan ay ka soo mareen. nebi muuse nabadgelya korkiisa ha ahaatee ayaa maalin maalmaha ka mid ah reer israa'iil ka dhex istaagay oo hadal dheer u jeediyey. wuu wacdiyey, isaga oo si walba u xusuusinaya abaalka uu eebbe iyaga ku leeyahay. intii uu hadalkaa waday wuxuu adeegsanayay erayo macno weyn leh oo si xoog la dareenkooda u dhaqaajiyey una gelgelay. erayo naxdin ku reebay oo ka wada boohiyey ayna la ilmeeyeen. qalbiyadoodii ayuu jilciyey oo intii muddo ah qallayfkii ka bi'iyey. hadalkiisii kolkii uu dhammaystay ayaa waxaa marada dacalkeeda iska laalaadiyey dadkii dhegaysanayay nin ka mid ahaa, kaasoo ku yidhi, rasuulkii eebbow, cid kaa aqoon badanay dhulka dushiisa ma ku nooshahay? muusena wuxuu kaga jawaabay, maya. sow isagu ma aha nebiyada reer israa'iil ka soo baxay waayeelkooda? sow ma aha kii fircoon ka adkaaday ee jilbaha u dhigay? sow ma aha gacanta iyo usha kii lagu karaameeyey? sow ma aha kii ay ushiisa baddu ku kala dhambalantay? miyaan eebbe kitaabka towreed ah isaga ku maamuusin, si toos ahna ula hadlin? ma waxaa jirta meesha la gaarsiiyey meel ka shishaysa oo la gaari karo? ma waxaa jirta sharafta uu haysto mid ka sarraysa oo loo hanqaltaagi karo amaba la tiigsan karo? waa maya jawaabtu, waase siday isaga la ahayd. hase ahaatee eebbe ayaa kolkaa kadib muuse u waxyooday oo u sheegay aqoontu inay ka ballaaran tahay wax uu nin qurihi koobo ama rasuullada ka mid ahi uu gaar ahaan ugu keliyeysto. waxaa loo sheegay dhulka dushiisa inuu ku sugan yahay ruux uu eebbe gooni ahaan u siiyey aqoontiisa ka badan iyo kasmo tiisa ka xeel dheer. markaas buu yidhi, eebbow, ii sheeg meesha uu ruuxaasi ku sugan yahay, laga yaabee inaan la kulmo oo cilmigiisa iyo ogaalkiisa qayb ahaan ka bowsadee. jawaabtii la siiyey waxay ahayd, waxaad kula kulmi doontaa kobta ay labada badood isaga darmaan. markaas buu yidhi, eebbow, waxaad ii yeeshaa astaan aan meeshaa ku garto iyo calaamad aan ku aqoonsado. markaas buu eebbe ku yidhi, waxaa astaan kuu ah, ninkaasna aad ka ag heli doontaa kalluunka aad qaadan doonto, kobta aad ku tebi doonto. sodcaalkii uu ninkaas ku baadi goobayey ayuu muuse isu diyaariyey. wuxuu kaxaystay inankii adeegaha u ahaa, kaasoo uu u xambaariyey dembiishii uu kalluunka saadka ahi ugu jiray. waddada ayuu cagta saaray, isaga oo ninkaa loo sheegay ku raad jooga. wakhtigii ay doonto ha ku qaadato, dhib kastaase ha ka soo gaadhe, wuxuu ku dhaarmaray inaannu salka meel dhigin ilaa uu kobtaa soo taabto. inankii la socday ayuu dabadeed ku amray inuu ogeysiiyo mar alla markuu waayo kalluunka uu xambaarsan yahay. halkay labada badood isaga darmaan markii ay gaareen, waa meeshii uu eebbe qadaray nebiga reer israa'iil iyo addoonkiisa wanaagsani inay ku kulmaane, ayuu muuse intuu lulmooday hurdo la dhacay. intii uu gamacsanaa ayaa roob da'ay. markaasna waxaa qoyay kalluunkii oo gelgeshay, nolol baa soo gashay. dabadeedna biyihii intuu ku booday ayuu baddii dib ugu noqday. nabadgelya korkiisa ha ahaatee, muuse ayaa kol dambe toosay oo adeegihiisii u yeedhay si ay u sii wataan dharaar socodkooda iyo guurahooda. inankiina ma dareemin kalluunkii ka baxsaday oo shayddaan baa halmaansiiyey. waxay socdaanba, waxay hadba jar ka dhacaanba, markii dambe ayay daaleen oo gaajo la saanqaadi waayeen. kolkaas muuse inankii ku amray inuu u soo dhigo cuntadii saadka ahayd ee ay siteen, marba haddii ay socodkooda daal iyo canaab kala kulmeen. markuu damcay kalluunkii ay siteen inuu dembiishiisa ka soo saaro, ayuu xusuustay mar hore inuu ka baxsaday oo uu biyaha ku booday. suu wuxuu nebigii ku yidhi, markii aynu dhaabta gabbaadka ka dhigannay ee aad adiguna gamaaday, ayuu kalluunkii xagga biyaha u cararay. inaan kuu sheegana waan iloobay, shayddaan baana i halmaansiiyey.
calaamadii guusha ayaa kolkaa muuse u soo iftiintay. ninkii uu doonayeyna isha baalkeeda ayuu u soo joogsaday. wuxuu yidhi, hadda un baan haynaa muraadkii aan lahayn iyo wixii aan ku raad joognay. dib inoo celi ilaa aanu gaarayno kobtii uu kalluunku kaaga baxsaday. raadkoodii ayay dib u qaadeen, waxayna cagta saareen waddadii ay awal hore soo mareen. halkii uu kalluunku kaga baxsaday markay tageen ayay kula kulmeen ninkii, nin weyd ah oo indho godgodan, astaamaha nebinimaduna ay ka muuqdaan. waxaa ka muuqda oo kale weji dabci wanaag iyo cabsida eebbe ay si wada jir ah u qurxiyeen. mare madaxa ilaa manjaha oogadiisa oo idil uu ku wada daboolay ayuu huwan yahay. muuse ayaa salaamay, markaasuu isagiina intuu wejiga marada ka qaaday ku yidhi, kumaa tahay? waxaan ahay muuse, ayuu ugu jawaabay. ma muusihii nebiga reer israa'iil ahaabaa? waa isagiiye yaa ku ogeysiiyey. eebbihii adiga iisoo kaa diray ayaa anigana ii ogeysiiyey, ayuu ninkiina su'aashii muuse ka celiyey. intaa kolkay isdhaafsadeen ayuu muuse hubsaday baadidii uu ku raad joogay inuu helay, xusulduubkiisii badnaana uu ku dambeeyey mid midha dhaliyey. erayo dabacsan oo duluc leh iyo sheeko wanaaggii rabbi u hibeeyey intuu warkii ugu bilaabay ayuu ku yidhi, addoon yahow wanaagsani, waxaan ahay la kulankaaga nin dhib doora u soo maray oo araggaaga geed dheer iyo geed gaabanba u koray. ninkaas baan ahay, ma ii ogoshahay inaan kula socdo, hooskaaga camalna kuu dabagalo, si aqoonta iyo hanuunka lagu siiyey aan wax uga helo. khadar baa markaa ku yidhi, muusow, iima dul qaadan doontid. haddii aad iraacdana waxaad arki doontaa arrimo aad kaaga yaabiya, amankaagna kugu ridi doona. waxaad arki doontaa arrimo qacda hore xaaraan kuugu muuqan doona, dhab ahaanse xaq iyo xalaal ah. eebbe ayaa aadanaha muranka iyo doodda dabeecad uga dhigay. adiga qudhaaduna inaad wax hagaagto iskama kari doontid. oo sidee baad uga aamusi kartaa arrimo ka duwan wax walba oo aad arki jirtay, wax walba oo aad aqoon jirtayna ka fog? muuse oo aqoon kororsiga aad ugu ooman ayaa markaa u ballan qaaday hadduu eebba idmo inuu noqon doono nin dulqaad leh oo wax kasta oo la faro aan diidi doonin. khadar wuxuu ku jawaabay, waad i raaci kartaa, waxaase shardi ah inaad dul qaadato oo aad naftaada ka adkaato. waxaa shardi ah inaadan wax su'aala ii soo jeedin, wax kasta oo aad igu aragtana aadan waxba iga weydiin. aniga ayaa markuu sudcaalkeennu dhammaado wax walba kuu macnayn doona, yaababka aad igala kulantana kuu fasiri doona. isna muuse shardigaa wuu oggolaaday, axdigaasna dhabarka ayuu u ritay. dabadeedna iyaga oo xeebta hareer socda ayay dooniyii badda dhexdeeda uga muuqatay. qoladii lahayd ayay ka codsadeen inay doonidooda saaraan oo meesha ay u socdaan ay u raacaan. iyagiina way ka yeeleen markay labadooda weji ka akhristeen inay yihiin niman wanaagsan oo astaamaha nebinimadu ay ka muuqdaan. ijaar la'aan ayay ku qaadeen, doonida dheeggeedana waxaa loogu soo dhoweeyey si aan la arag oo aan la maqal. waxay la taxaashtaba khadar baa markii dambe doonidii si qarsoodi ah uga siibay 2 loox oo ka mid a looxdii ay ka samaysnayd. muuse ayaa kolkaa argagaxay oo uu falkaasi la fool xumaaday. waa rasuul wanaag badan oo loo soo diray hanuuninta dadka iyo la dagaalanka gardarrada. waxaa u cuntami weyday duulkii samaanta u galay inay iyaguna xumaan ugu abaalgudaan. inay doontu la degto halkaasna ay ku dhammaadaan ayuu muusena ka cabsaday. markaas buu axdigii iyo ballantii iloobay oo af labadii yeeray. ma dadkiina soo dhoweeyey oo sida wacan noo qabtay ayaa sidan u galaysaa? maxaad doonida uga daloolinaysaa oo inay badda ku maanshoobaan aad sabab ugu noqonaysaa? dhabtii arrin la kahdo lana naco ayaad la timid. khadar ayaa kolkaa muuse eegay oo xusuusiyey ballantii uu galay, axdigii uu ka qaaday iyo hadda ka hor inuu u sheegay la socodkiisa inaanu u dulqaadan doonin. markaa ayuu muuse garwaaqsaday gefkii uu ku dhacay iyo ballantii uu oofin kari waayey. suu waa u cudur daartay, wuxuuna ka codsaday halmaankii axdiga inuu ka cafiyo. wuxuu yidhi, wixii aan sameeyey ha ii qaban, igana cafi, ha iska kay reebin. aniguna hadda kadib si wacan ayaan ku dhagaysan doonaa, shardigaagiina waan ilaalin doonaa. doonidii intay ka degeen ayay sudcaalkoodii iska sii wateen. wax yar kadibba waxay ku soo baxeen wiil qurux badan oo qaar kale oo ay isku fil yihiin la cayaaraya.
gacanta ayuu khadar wiilkii ku soo dhegay oo inta kuwii kale ka durkiyey dhabarka u seexiyey, dabadeedna dhegta dhiigga u daray. dilkaas ayuu muuse la ashqaraaray. dembigaas ayaa la weynaaday. wuxuu arkay kuray qurux badan oo laga yaabo inuu madi yahay, labadiisii waalidna ay keligii shinsanayeen oo la gowracayo. wuxuu arkay wiilkaas oo la dilaayo, isaga oo aan qabin wax utun ah iyo dhiig uu galay oo laga goynayo. oo yaa dilaya waa nin wanaagsan oo dadka eebba ku xiran ku tirsan, ahna hogaamiyayaasha diinta mid ka mid ah. markaas buu muuse ka baxay axdigii uu la galay oo inta ballantii ku gacan sayray ku yidhi, dembigan aad fashay muxuu yahay? falxumadan aad ku kacdayse maxay tahay? naf daahir ah oo aan mid kala dilin sidee baad u dishaa? dhabtii waxaad ku tallaabsatay arrin la naco lagana siqoodo. khadar ayaa kolkaa muuse eegay oo xusuusiyey ballantii uu galay, axdigii uu ka qaaday iyo inuu hadda ka hor u sheegay inaanu la socodkiisa u dulqaadan kari doonin. muuse ayaa kolkaa yaxyaxay. wuxuu garwaaqsaday addoonkan wanaagga badan inuu dhibaateeyey, uuna ka gardaran yahay. waxa uu garaystay inay isaga ku habboonayd inuu dulqaad yeesho, afkiisana uu haysto tan iyo inta uu uga fasirayo dulucda falalkiisa la yaabka leh, aqoontiisa ballaaranna uu wax ka baraayo. wuxuu ka baqay haddii uu la sii murmo amaba uu ka hor yimaado inuu inta nabcaysto iska reebo. sidaa darteed muuse ayaa markaan soo jeediyey shardigii ay ku sii wada socon lahaayeen, kaasoo ahaa haddii uu kol dambe su'aalo weydiiyo inuu khadar gar u yeelan doono inuu iska reebo, saaxiibnimadiisa gooyo, si dambena aanu la marin. shardigaas waxay ku wada socdaanba markii dambe ayay gaajoodeen oo daaleen oo lugihii qaadi kari waayeen. magaalo ayay ku soo baxeen, dabadeedna way ku leexdeen. gudaheedii ayay galeen, iyaga oo filaaya inay ka helaan sahay ay waddada ku maraan iyo cunno ay ku gaajabeelaan. ha yeeshee dadkii magaaladaa degganaa oo ahaa kuwo ab iyo aabbayaal xun ka soo jeeda ayaa soo dhoweyn waayey oo inay martigeliyaan dhaarka maray. waxay siiyaan iska daaye, erayo xunxun ayayba codsigoodii kaga jawaabeen, mana ay maamuusin. cunto iyo hoyba markii ay ka waayeen ayay isaga tageen, iyaga oo aad u gaajaysan, ciil iyo carana ay buuxiyeen. hase ahaatee intii aysan magaaladii ka wada dhammaan ayay arkeen derbi leecsan oo inuu dumo ku dhow. markaas buu khadar toosiyey oo ku celiyey sidii uu waagi hore ahaan jiray si la mid ah. muuse ayaa markaa yidhi, yaab iyo amankaag badanaa, sidee baad abaal u taarataa qoladan gobonnimada ka fogaatay ee intaannu martinay na carraabisay? iyaguba wayna xumeeyeene sidee baad ugu asxaanfashaa? bal maad weydiisatid shaqada aan u qabannay inay naga siiyaan wax aan nafta ku ceshanno ee aan ku baahi baxno. khadar oo hubsaday inuusan hadda kadib muuse u dulqaadan doonin ayaa u sheegay xilligii ay kala hari lahaayeen in la gaaray. hase ahaatee uu taa ka hor u fasiraayo dulucda falalkii uu dulqaadka u yeelan waayey iyo sababihii ku wacnaa. wuxuu yidhi, aan ku warramee, doonida waxaa iska lahaa dad masaakiin ah oo badda kaga shaqaysta, waana isha keliya ee ay masruufkooda ka helaan. waxaase jira boqor arxanlaawo ah oo dadka ka dhaca, xoogna kaga qaata dooni kasta oo cusub amaba israacsan. masaakiintaas aniga oo u naxariisanaya, wuxoodana u badbaadinaya, ayaan doonidooda waxyeeleeyey si loogu daayo markuu boqorkoodu arko inay daloosho. dul ahaan waa fal dembi weyn u muuqda, hoos ahaansi ay naxariisi ku idishahay. wixii aan ku kacay waxaad adigu u aragtaa fal la kahdo oo la naco, waase fal hantida masaakiinta iyo noloshoodaba lagu ilaalinayo. aan ku warramee, wiilkuna wuxuu ahaa mid aan khayr lahayn oo dadka oo idili ay necab yihiin. waxaa dhalay 2 ruux oo mu'miniina, eebbahoodna aad ugu xiran. sidaan ognahayna rabbi jacaylka carruurta ayuu waalidka ku tallaalay, taasina waxay geyeysiisaa inay warasadooda gar iyo gardarraba ugu hiiliyaan. waxaan ka cabsaday wiilkaas inkaaran jacaylka ay u hayaani inuu xaqa ka weeciyo, iimaankooduna uu sidaa ku dhaawacmo. sababtaas ayaan u dilay, aniga oo labadiisa waalid u danaynaya, rajana ka qaba inuu eebba ugu beddelo waraso wanaagsan oo isaga uga khayroon. aan kuu warramee, derbigii aan toosiyey isna sheekadiisa iga dhegayso. waxaan xagga eebba ka ogaaday hoostiisa inay xoolo badani ugu aasan yihiin 2 canug oo agoon ah, nin wanaagsan oo allihiis yaqaanna ka soo jeeda. waxaan rabay hantidaasi inay halkaa ugu sii jirto,
inta ay agoontaasi ka qaangaarayaan oo ay awood u yeelanayaan inay iskood ula soo baxaan una maamushaan. dhammaan falalkaas aad u soo joogtay aniguna aan ku kacay ma aha kuwo aqoontayda iyo ra'yigayga ku yimid. waa waxyi aan xagga eebba ka helay iyo talo uu isagu i waafajiyey. intaasina waa fasiraadda arrimihii aan aniguna sameeyey, adiguna aad iigu dulqaadan weyday. dhegaystayaal, waxaa halkaa inoogu eg barnaamijkeennii ku saabsanaa taxanaha sheekooyinka qur-aanka.